السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baan idiin salaamayaa. Ramadaan mubaarak mar labaad waa anigii oo Sacad. Waxaan jeclaystay intaa Ramadaanta inaan casharada ereyga oo gooska ah ee sadaqada ku saabsan aan isku dayo dee wixii ilaahay naga garansiiyo, wixii qaladana anaga xaggayga ka yimaadeen ilaahay naga dhaafo. Sekada sidaynu hore uga hadalnay shalay waynagii ka hadalnay niri sekada waa wax ilaahay nagu soo dejiyey inaynu sekada bixino. waana 2.5 baa layidhi sekatu maalkan ka hadlaya anu markaan leeyahay 2.5 waa sekatu maalka. waynagii markaa soo kafargaraynay 6dii qaybood ee xoolaha sida dahabkii, lacagta, sakaatul fitriga oo jirka oo sanadkii maalin la bixiyo, iyo sakada ganacsiga, rikaaska xoolihii la aasi jiray berigii hore oo dee aan imanka jirin, iyo sakada xoolaha nool, iyo sakada beeraha. Marka iminka waxaan ku yaro noqonayaa sakada ganacsiga ayaan ku noqonayaa. ayaan rabaa in yar ka hadla markaa maanta casharkeena. badanaa sakada islaamkaa soo rogay, waxaana loo soo rogay sakada in ay bulshada faqriga ka saarto. waxaa kaloo sakada loo soo rogay waa qaab ay bulshadu xaqdiga iyo xaasidnimadii waxaa iska ilaaliso. waxaa loo soo rogo kale inay bulshadu u noqoto bulsho walaala ah oo takaafulka iyo isticmaal u hesho, gaajadana lagaga saaro. gaaladuna ribaagay isticmaalaan. ribaagiina ninkii taajirka ahaabaa qaata oo intuu dee loon ku siiyaabuu lacag kaa qaadayaa bangiyadu amaah ku siiyaan. laakiin inagu ma qaadano ribada. marka opposite baynu isku nahay maaragta. inaga taajiriintii maalka haystay waxaa leeyahay lacag bixiya, iyagana kuwoodii iyagaa qaadanaya. taas wayban adduunkan reer galbeedku ama dadkan horumaray iyagunbaa sii soconaya, taajiradunbaa taajira sii noqonaya, masaakiintuna waa kusii dhimanayaan. marka sababta loo qaadanaya waa sababta. qofka sekada bixiyaana wuxuu ugu talagalay inuu ilaahay ugu dhowaado, inuu naarta kaga xoroobo, inuu maalinta qiyaamaha dhibaatada ilaahay kaga faydo, inuu ilaahay maalka ugu barakeeyo. qofku waxaasuu u bixinaya, laakiin macno kale uma bixiyo. marka haddaan ka hadlo imanka tii aan dul istaagnay ahayd sekatul maalka ama waxyaalaha shalay waxaan ilaawana ka hadlin alcaqaar ama hantida maguuraanka ah. hantida maguuraanka waxaa loo qaybinayaa 2 qaybood ayaynu qaybinaynaa. iyadana labada qaybood ee loo qaybinayo waxa weeye qaybtii la kareynayay. guryaha aad karayso dhan haddaad iminka adu guryo badan leedahay ama aad guryo karayso, waxa guryaha laftooda lagama bixinayo. lacagta kaa soo gasha ayaad seke ka bixinaysaa. 85 gram dahabaa lagu qiimeynayaa. 85 ku dhufo 60 marka lagu dhufto waa $60, waa $5,100. markaas sanadkan caamka xilligan la joogo 5,000 hadday kaa soo gasho lacagtaasi, gurigaasoo kale kaad ku nooshay maaha, waa guri aad karayso. hadday sanadkii 5,100 kaa soo galaan oo kale, oo aanad lacagtaa isticmaalin oo dailygaagii expenseska oonad baahi u qaba, waa inaad ka bixisaa seke ka bixisaa. markay $5,101 gaadho kale ayay seke ku qabanaysa. laakiin gurigii haddaanay $5,101 kasoo bixin sanadkan iminka, waxba kama bixinaysid. markaa seke muu gaadhin bade threshold baa la yidhaahdaa. okay, halkaas taas baan ku dhaafay. haddii laakiin 10 guri aad leedahay, guri walba lacag ka qaado, isku daraysaa lacagaha. hadda wixii kos ku baxe ee sida iminka qofka soo ururiya lacagtoo kale, inanka maintenanceka sameeya, waxa waad ka jaraysaa. waxa xaasilkuunbaa laga hadlayaa. taas waa halka. guryaha laakiin aada ugu tala gashay inaad iibiso, dad baa jira guryo yaro 2 qol, 3 qol, 4 qol dhisdhisa. guryaha yaree loogu talagalay in la iibiyo aada iibinayso, maalintaad sidaa lacagta u gelisaba lacagtunbaad qiimeynaysaa. lacagta market value ama iminka sixir suuq baa lagugu qiimeynaya. markaad sanadkii sekada bixinayso, haddaad 4 guri dhistay, qaarna qabyo yihiin, intii gashuunbaa la qiimeynaya. seke waad ka bixinaysaa iyaga. ilan iibbaad mushtar baad ugu jirtaa iyaga, maaha guri aad gelayso. okay,
guryaha aad kirada ah ee aan cidi ku jirin intay maran yihiin ama aad friiga u bixisana qodobka hore aan taa ku daray iyaguna dee seka kaa qaban mayso. marka guryihii iibka ahaa wixii kaa galay lacag oo dhan iyo waxaad ugu tala gashay inaad geliso sekadu way ka baxaysaa. waxaan intaa raacinayaa hudheelada iyo hudheelada waaweyn ee dee wadankeena ka buuxa iyo meelaha la kireeyo gas houseyada iyo waxa weeye lacagta kaa soo gasha maaha daartii intii kaaga baxday. lacagtaa kaa soo gashay lafteedu maaha hadday imika bil walba kun kusoo galaan maaha kunkaa dee 10,000 hadii laysu geeyo sanadkii 10,000 kaasoo galaan 10 kaba laga wada bixin maayo. wixii maintenance kharasha xitaa dad qaar aad u ka isticmaasho xaasilkaa laga bixinaya dhigaalka sanadkii dhigmaya ee 12 monthskii inagii shalay ka hadalnay inay kusoo wareegaan ya. marka xaasilkaa laga hadlaya. talabaad diinteenu ma ogolo wax isku jira in la kala saaro, sida iminka haddii aad gas house iyo hoteeloo kale leedahayo lacagtu ay meel ku jirto ha kala saarino ha odhan si aanay u gaadhin sekada aan khiyaameeyo mid walba aan yareeyo. maaha wixii isku jiray sanadku markuu dhammaadana isku daa, waxaan isku jirin ha isku darin. okay waxaan ku iyadana rabaa inaan qodob yaro degdega ka hadla raashinka. si adag bay dadkeenu u xisaabiyaan badanaa. raashinka waxaa layidhi 20 kiish markay gaadhaan iyaga sanad lama sugo ayaa laga bixiyaa, ama 5 awr waxaan la yidhaahdo awrar ayaa lagu qiimeeyaa 1,000 gram oo kale. okay ama hal tan. markaad 1,000 gram oo kale ay gaadho ayaad ka bixinaysaa ayaad 4 loo qaybinaya. marka 4 loo qaybiyo 1,000 gram qaybta soo hadhay ayaa qofku ka bixinaya 2.5%. markaa sawirka halkaan soo dhigay waa 3 calculation, saddexduba way isku imanayaan. for example 10,000 gram buu reer haystaa ama adu aad haysataa kasoo qaad 10,000 gram. 10kii gram 10 u qaybi, bal xisaabta iminka dadka reer miyigeenu isticmaalaan badanaa 10 u qaybi 1,000 baa soo hadhay. 1,000kaa soo hadhay 4 u qaybi de waa 250. saasay u xiyaareen iyagu percentage ma yidhaahdaan. haddaad 10,000 gram 2.5%, 2.5 divided by 100 times 10,000 ku dhufatana waa 250 kiilo. isku qayb weeye soo ma aragtid. calculation saddexaad baa jiro waxaba ka fudud oo ah 10,000 aad haysato waxaad haysataba ee gram 40 u qaybi 250. saddexdii xisaaboodba isku sibay noqdeen. insha allah maanta intaasan kaga hadhayo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.